الحديث الرابع: مراحل خلق الإنسان وخاتمته. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. بسم الله. waxaynu soo socday casharkeeni taxanaha ayaa rabadaanta xadiiskii afraad ayaynu qaadanaynaa maraaxilu khalqi linsaan wa khaatimatu. can abi cabdiraxmaan cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhu, waxaa laga wariyey abi cabdiraxmaan cabdillaahi bni mascuud, alla raaliha ka noqdee, qaala wuxuu yidhi: xadasanaa wuxuu nooga waramay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulkii ilaahay, wahuwa saadiqu lmasduuq, isagoo ah mid run sheega oo la rumaysto: ina axadakum midkiin yujmacu khalqahu fii badni ummihi, waxaa lagu ururiyaa oo lagu kulmiyaa caloosha hooyadii abuurkiisa 40 yowman 40 casho, uma intaa dabadeed yakuunu calaqatan misla daalik, 40 in leeg buu dheecaan ahaadaa, uma yakuunu mudqatan misla daalik, 40 in leeg buu xinjir ahaadaa, uma yakuunu calaqatan misla daalik, 40 in leeg buu xinjir ahaadaa, uma yakuunu mudqatan misla daalik, 40 in leeg buu cad ahaadaa, uma dabadeetana yursal waxaa loo diraa ilayhi xaggiisa malaku malag, fayanfuqu wuxuu ku afuufaa fiihi ruuxda, wayu'maru waxaa la amraa b4 kalimaat 4 shay inuu qoro: bikatbi risqihi, risqigiisa wuxuu noqon doono, wa ajalihi, cimrigiisa iyo xilliguu dhiman doono, wa camalihi, shaqiyi aw saciid, camalkiisu muxuu noqon doonaa, mehlu janno mehlu naar. fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay, alladii laa ilaaha kayruhu, aan ilaahay keli jirin isaga mooye, ina axadakum midkiin layacmalu wuxuu camal falayaa bicamali ahli janna, camalkii ehelka jannada, xataa maa yakuunu ilaa aanay noqon beynahu wa beynahaa, isaga iyo jannadii, ilaa diraac dhudhun, fayasbiqa calayhi alkitaab, waxaa u soo hormara kitaab, yacniga wixii u qornaa. haddii uu intaa camal janno soo sameynayey laakiin shaqi u qornaa, shaqinimadii buu ku dambeeyaa, fayacmalu wuxuu sameynayaa bicamali ahli naar, camalkii ahli naarka dhudhunkii u harsanaa, fayadkhuluhaa, deetana wuu gelayaa naarta. wa ina axadakum midkiin layacmalu wuxuu sameynayaa bicamali ahli naar, camalka ahlu naarka, xataa maa yakuunu beynahu wa beynaha ilaa diraac, ilaa isagaiyo naartii diraac ay isku soo jirsadaan, fayasbiqu waxa weeye usoo hormaraya caleyhi korkiisa alkitaab, wixii u qornaa, waxaaba u qornayd saciid, fayacmalu wuxuu sameynayaa bicamali ahli janna, camalkii dadka jannada, fayadkhuluhaa, jannadu gelayaa. rawaahu bukhaari wa muslim, waxaa soo saaray bukhaari wa muslim. xadiiskan waxaan ka qaadanaynaa
faa'iidooyinkiisa ka mid ah xadiisku wuxuu caddaynaya quwwadda alle sida addoonka alle u abuuro maraaxilka uu maro iyo sida aan alle waxba aanay u ahayn abuurku iyo siduu alle ugaga warhayo ilmaha yaree dharab uurku jiiftaa maraaxilka kala duwan u maraya dheecaan xinjir cadhiliba 9 bilood intaba iyo isagoo dhashayba waxaan kaloo ka qaadanaynaa qadarku inuu xaq yahay laakiin camalku uu lama huraan yahay qofka cudurdaar u noqon mayso wixii ii qoran baa ii qoran wax kastaa ku qornaadaan adigu dadaal ilaahayna tala saaro hadayada ilaahay baa haya adigu laakiin camal saalaxa la kaalay waxaan kaloo xadiiska ka baranaynaa qofku bilowgiisa siduu daciif u yahay ee u tabardaran yahay hadhow markuu weynaadana waxa weeye u ilaawayo nolosha iyo maraaxilka uu soo maray iyo daciifnimadiisii wallaahu aclam